socda way noocyo badan yihiin kuwa se ugu xoog badan isla markaasina aan inta badan loo taag iyo maare helini waa kuwa dhinaca afkaarta. Filimkii Bataan uu ka guuleystay Hinduugii isku dayay inay fashiliyaan maxay tahay hadaba sheekadaas aan idinka dabageeyo. Jilaaga weyn ee reer Hindiya ee Shah Rukh Khan waxa uu soo saaray filim lagu magacaabo Bataan muddo 4 sano ah oo ka fadhiyay xirfadiisa jilaannimo taana ay ka horeysay kadib markii uu muddo dheer hoos u dhacay isla markaana filimo badan oo soo saaray ay noqdeen kuwa dhaca ama guul dareysta isla markaana uu nasasho 4 sano ah uu galay ayaa haatan waxa uu soo saaray filim lagu magacaabo Bataan. Filimkan ayaa ahaa filim qisadiisa iyo waliba nooca loo sameeyay iyo sida loo jilayaaba ay ahayd mid cajiib ah. Hinduuga xaq jirka ahi waxa isku dayeen inay fashiliyaan isla markaasina ay filimkaasi fadhiisiyaan isla markaana aan wax dhaqaalaha haba yaraatee aanu filimkaasi sameyn. Haddaba waxaa jira filimkaasi inuu guuleystay isla markaana taageerayaasha Shah Rukh Khan ay uga sii hoydeen baa la yiraahdaa habeenkii la soo bandhigay ama markii koowaad ee lagu soo bandhigay shineemooyinka ama sinimooyinka dalka India inay seexdaan albaabada sinimooyinkaasi si aanay uga horeyn cidina isla markaana aanay tigidhada sinimooyinku aanay uga dhamaan. qaar kamid ah ganacsatada iyaguna muslimiinta ah iyo waliba dad badan oo kamid ah dadka Shah Rukh Khan taageerayay ayaa iyaguna tigidho badan goosanayay. Mid kamid ah ganacsatada reer Hindiya ayaa sheegay in uu 22 sinimo oo kuwa ugu waaweyn dalka Hindiya uu isku mar tigidhka ka goostay taas oo ku taageerayay Shah Rukh Khan. Hinduugu ayaa waxay ku doodayeen in uu Shah Rukh Khan uu ku caayay filimka isla markaana uu ku soo bandhigay ficilo aan iyaga raali gelinayn. waxyaabaha dhaliilayaan waxaa kamid ah heesta filimkaba ugu caansan oo ah iyadoo hees aad u cajiib ah isla markaana dadka adduunka oo dhan ay wada qaateen ayaa waxay ku tilmaameen inay tahay hees lagu aflagaadeynayo diinta Hinduuga marka la eego bay yiraahdeen ereyada heesta ku jira iyo sidoo kale maryaha ay agtaradu xidhnaydba oo ay ku ciyaaraysay. inkastoo ay taasi iska ahayd sida dad badan ay sheegayaan iska gabasho ay ugu gabanayeen nacaybka Shah Rukh Khan ay u hayaan iyo guud ahaan muslimiinta India aynu soo qaadano 4 qodob oo keenay baa la yiri filimkaasi haddaba inuu noqdo filimkii ugu dhaqaalaha badnaa ee dalka Hindiya soo mara maalintiisa koowaad isagoo 55 crore hal maalin ku keenay isagoo jabiyay rikoodhkii filimkiisa ka horeeyay ee KFG2 oo isagu 53 crore isagu maalintiisa koowaad helay oo ahaa filimkii ugu dhaqaalaha badnaa maalinta koowaad ee dalka Hindiya. 4 sababoodna waxay yihiin sida ay dadku sheegayaan in Shah Rukh Khan uu muddo hawada ka maqnaa isla markaasina xiise weyn oo loo qabay. Talabaad ayaa ahayd akshinada iyo waliba ficilada filimka lagu soo bandhigay oo ahaa kuwa qayrul waali ah isla markaasina aad adduunka oo dhan macal Hindida marka laga tago Bollywood iyo Hollywood iyo dhammaan shirkadaha ay si weyn uga tacajabeen. ficilka saddexaad ama talaabada saddexaad ee ahayd in filimkan lagu guuleysto ayaa ahayd sida uu uga soo muuqday ama uu jiray jilaaga weyn ee dhinaca waliba negative ka ilaahdee ama dhinaca boosaska waa ninka lagu magacaabo John Abraham. qodobka afraad ee keenay inuu guuleysto filimkan ayaa ahayd madadaalo aad u cajiib ah qosol iyo waliba dhinaca heesaha kala duwan ee filimkaasi ku jiray oo ahaa kuwa iyagu dadka aad u tacajab galiyay isla markaana ay si weyn uga heleen oo keenay in dad badan ay daawadaan. ugu dambeyn Shah Rukh Khan uu ka guuleystay Hinduugii xaq jirka ahaa ee suba haystay iyadoo xataa ganacsadaha Hindiya ugu weyn ee Adani oo ninka saddexaad ee adduunka oo dhan ugu malyaneersan ama ugu hantida badan uu ku baaqay in la gubo filimkaasi meeshii lagu arkaba. Hinduda haddii ay tahay wadaadada iyo ganacsatada iyo xataa kuwa xukuumadda ku jiray xaq jirka ayaa ku baaqay filimkaasi inaan marna la daawan oo la daadigo ama dhulka la dhigo si uu u fashilmo. taageero uu ka helay taageerayaashiisa iyo asxaabtiisa qaar kamid ah kuwa jilayaasha uu Salman Khan ugu horeeyo ugu dambeyn Shah Rukh Khan uu ka guuleystay cadawgiisa.